barnaamijka kaabaha odoriska. waa talooyin iyo xigmado ku saabsan nolosha. isku day dhegeysta inaad waqti cayiman siiso maqaalkan nuxurka iyo qaayaha ku fadhiya. haddaba maqaalkani wuxuu xambaarsan yahay macno guud ee waaye aragnimada nolosha aadanaha, waxaana jecelnahay inaad wax badan ka baran doontid insha Allah haddii aad u fiirsato ereyada ku dheehan qoraalkan ama maqaalkan aan idiin gudbinayno. haddaba dhegeystow, waxaan rajaynaynaa inaad si fiican uga faa'iidaysato. haddaba dhegeysi wacan. cilaaqada ama xiriirka kaliya aan marnaba xumaanin, fashilmin, qalqalgelin, niyado xunna la soo dirsin iyo malooyin ayaa waxay tahay cilaaqada qofka ay kala dhexaysa rabbigiisa. dariiqooyinka ugu daahirsan ee lagu joogtayn kara xiriirkaasi ayaa waxa uu yahay salaada. shakhsiyadda xoogga leh micnaheeda maaha inaado hadallo liita ama afxumo ah ee xoogaa waa xigmad ee maaha afxumo. haddii aad shay doonaysid ka dalba rabbigaaga, si daran u dalbo, dalabkaaga ku celceli oo ha ka daalin. waxaasoo hubaal ah inuu alle kaa ajiibayo, waayo alle waa ku maqlayaa marka aad barido, waa ku arkayaa marka aad dhaqaaqayso, waana ogyahay waxaad samayso, halbowlahaagana waa kaaga dhow yahay. qalbigu waxa uu ogyahay waxa uusan ku dhawaaqin carabka, dhegahana aysan maqlin. adigana waa inaad ogaataa waxa carabkaagu ku dhawaaqayo, dhegtaadana ay maqlayso. qofka aan dhadhamin qaraarka bilowga ma dhadhamiyo macaanka dhammaadka leh. qof mar walba ka fekera dhammaadyadana bilow ma laha, meelna ma gaaro. waxaa jira dad kuu dhakan oo sugaya ilaa aad ka dhacayso, marka aad dhacdana ay kuu sheegayaan inay filayeen mar hore inaad la kulmayso tan oo kale. bal inta ay dadka ku mashquulayaan may ku mashquulaan naftooda. ogowna inaad naftaada ku mashquushid ay kaaga xaqnimo badan tahay inaad ku mashquusho khayrkaaga. wax walba waxa uu la dhashaa subaxda. qadarka, rajada, najaaxa, himada. qisadii shalay waxay soo xirantaa subaxda, waxaana bilaabanayso qiso cusub ee niyadaada wanaaji kana run sheeg, waayo niyadaada ayaa lagugu arsaaqayaa. dhool cadday maanta si ay u ogaadaan dhammaan in aad maanta in badan ka xoog badan tahay shalay. weji macbuusnimada waxba kuuma soo siyaasinaysa aan ahayn in lagaa kala fiigo, sababtoo ah inaad walaalka ama walaasha aad kula kulantid weji bashaasha waa sadaqo. saamixidda micnaheeda maaha inaad ku celiso isla tijaabadii midkii aad saamaxday. dhacdooyinka shalay waa darsiga maanta, sidaa daraaddeeda ceeb maaha in maanta dhagax ku kor kufto, ee waxaa ceeb ah isla dhagaxii shalay maantana aad ku hor kufto. haddii alle ugu talagalo inuu ubax ku dhex ubaxoobo dhalo cidhiidhi dhexdeeda, waa ubaxoobayaa. sidaasi si la mida dhammaan umuuraheenna ee arrimahaaga rabbi u daa oo isaga tala saaro oo dheh yaa rabbi. dhammaan
dadka samaan kula dhaqan, waayo waxaa jirta daqiiqado la ismacsalaamiyo oo aan lahayn waqti xadidan oo markaasi waqtiga kuu saamaxayn inaad cidna u cudur daarato ama aad raali geliso. dumarka ma sharfo mid sharaf leh ma ahane, mana ihaaneeyo mid liita ma ahane. waana xadiis saxiix ah. kani waxa uu ka mid yahay hadalka rasuulka salawaatullaahi calayhi wasalaam ee haweenka oo ah khayrbadaha ugu khayrka badan basharka oo dhan. marka ragow, dumarka waa inaad sharaftaan hadal ahaan, ficil ahaan iyo dhaqan ahaanba. hana liidin hadal ahaan, ficil ahaan iyo dhaqan ahaanba. xumaan faafiyaha ayaa ka daran xumaan falaha. basharka waxaa ugu daciifsan qofka ku qanca hadalka dadka daliil la'aan ka hor inta uusan naftiisii u samayn qanaaca. ahow adiga sida aad tahay, kana digtoonow inaad har qiimo la u noqoto. markana xigmado kaleeto oo ku saabsan waaye aragnimada. waaye aragnimada waa shay qaali ah oo haddana muhiim ah. cid walbana waaye arag iyo xigmad lama noqdo. qofka marka uu la kulmo waaye aragnimo dheeri ah uu ka duwan yahay dadka intiisa kale, waxaana laga dareemaa habdhaqanka qofka. haddaba maqaalkan ama qoraalkan soo socda waxaan idinkugu soo gudbin doonaa xigmado iyo talooyin wax ku ool ah. noolow keliga ha yeeshee cidna kelinimaha badin. u noolow si qof weyn ee ha ku noolaan isla weyni. alle u noolow dartiisana u dhimo, abuurkana abuurahooda u daa. quwadda goor walba maaha waxaan dhahno iyo waxaan samayno. mararka qaar waxay noqotaa waxaan ka aamusno, waxaan uga tagno rabitaankeenna iyo waxaan isdhaafinno. badaha adduunyada awood uma laha inay damiyaan dhimbil daba oo ka mid ah naarta jahannama. ha yeeshee dhibic elena oo kaaga soo baxday alla jacayl iyo alla kacabsi ayaa kaa xijaabi karta naartaasi. asalka ayaa waxa uu yahay inaad ahaatid la jirka rabbigaaga. haddii uu rabbigaaga kula jiro, yaa wax kaa qaadi kara ayay noqon su-aasha. haddii uu garabkaaga kaaga baxana, yaa kuu gargaari kara. nolosha ma ku siinayso wax walba aad jeceshahay, ha yeeshee qanaacada ayaa waxay kaa yeelaysaa inaad jeclaatid waxa aad haysatid, sida adiga oo gaabka kuu saaran yahay dayaxa dushiisa. inta aad ku jirto safarkaaga dheer, waxaad ogaataa qariidada saacadaada iyo najaaxaaga ay ku jiraan jeebkaaga ee kuma jira sanduuqyada dadka kale. wax jeebkaaga ku jira meel kale haba ka raadin. insaanka marka uu kula hadlayo si wanaagsan u dhegeyso. tani waa aadaab, waa tarbiya, waa ixtiraam iyo faham. ha yeeshee ha rumaysan wax walba uu sheegayo daliil la'aan. adduunyadan qiimo ma laha marka laga reebo marka aad leedahay qalbiga alle ku xiran magangala. marka uu murugoobo ku mahadiya, marka uu farxo isagana u laabta, marka uu dembi ku dhaco xaalad kasta uu ku sugan yahayna alle u shukriya. ahow mid ku samir badan axwaashaada nolosha adduunyada. haddii ay kugu adkayso adduunyadan, waxaad ogaataa inay u dhaxayso siin iyo diidmo. waxaadse ogaataa siismada waa xigmad, diidmadana sidoo kale waa xigmad. haddii lagu siiyo ha dhihin waa lay sharfay, waayo waxaad ihaanaynaysaa inta kale. haddii lagu diidana beddelkeeda ayaa lagu siinayaa ee samir. haddii lagu naxariisana amarka ayaa lagu naxariisanayaa. haddii kugu adkaatana amarka alleh ayay ku jilcaysaa. mararka qaarkood waxaad u baahan tahay inaad hoos ugu soo degto darajooyin yar caqliga si uu kor u noqdo darajooyinka ugu sarreeya ee qalbiga. waayo waxaa jira waxyaabo aan lagu xallin karin caqliga balse lagu xallin karo qalbiga. waxaana muhiim ah inay isku dheelitirnaadaan darajooyinka caqliga iyo qalbiga. haddii ay kacdo duufaanta fidnada oo ku gilgisho, waxaad si xoog ah u qabataa qalbigaaga, waxaadna
ku dhahdaa sugnow, waayo qalbiga haddii uu gilgilo duufaanta fidnada si fudud ayay kuu dafaysaa. kaabihii oo dariskana waa inaga intaa maanta. waxaadna kala socoteen idaacaddeenna Hirsamo.